السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel walba adduunka joogtaan waa walaalkiin Cabdi Fataax oo idin leh mar kale mar saddexaad soo dhawaada. insha Allah waa idin fiican aniga idinkan in caafimaad qabtaan meel walba adduunka joogtaan insha Allah saas rajeynaa. waxaa maanta inoo tahay maalintii 29 29 cisho. alxamdulilah resultiga waa kana waa la hayaa, everything waa soo madoobaatay maasha Allah. wax walba inta way soo baxday, intana waa soo baxday maasha Allah. waxaa kaliya dhiman sida ay tan u soo madoobaatay inay tan u soo madoobaato. inta hadda waxaa ka soo baxday maasha Allah xaad oo maasha Allah. marka hore saan oo kale wajigayga ahayd walaa xaad iyo waxay leedahay ma jirto. intana sidoo kale laakiin alxamdulilah hadda saas markaa dhahay waa dareemaya maasha Allah way soo baxday. marka waxaan rabaa walaalahay inaan wax badan insha Allah inta aniga wax ka aqaano iyo inta aniga ka faa'iiday mar walba inaan la faa'iido dadka walaalahay oo ku xiran my TikTok-gayga, YouTube-kayga iyo Instagram-kayga intaba. marka waxaan idin leeyahay walaalayaal mar walba ogaada horta wax walba waxay leeyihiin weyga loo kala isticmaalayana muhiim waay. dambaroolkan macnihiisa ma aha inuu madax aan bidaar lahay ama salxa lahay uu tin ka soo saarayo, asaga uu tin ka soo saarayo macnihiisa ma aha. taas inaan fahanaa muhiim. dambaroolka macnihiisa waxay tahay saliidan tinta soo bixin lahayd, wadadii ay tinta ku soo saari lahayd inuu u furo uu u baneeyo. it means meeshii xirnayd oo daboolnayd inuu daboolkaas ka qaado saacido saliidana markaas ay markii la mariyo saliidana tinta ay soo saarto sida aad wada jeedaanba. marka maasha Allah muhiimadda ugu weyn marka dambaroolka loo isticmaalayo waa saas. dambaroolkan waa saacide, saliidana waa soo saarto. laanno turki karoon waxbay soo saartaa, kana wuu saacidaa. qofka aan ka rabin wuu isticmaali karaa kaligeed saliidda. inaan wax fahanaa muhiim ah mogta. laanno dadka inta badan dambaroolka saan waaye kan waaye saas waa ay dhahan. saliidda kaligeed waa isticmaali kartaa si ay tintaada kugu soo celiso. ma lagu dhahayo tinta kaligeed makuu soo saarayso. laakiin bilcagsi waaye, kan kaligiisa isticmaalaa saliidda ma isticmaalaya haddaad tirahdid kan waxba makuu soo saarayo. laanno kan saliiddaanuu saacidaa oo keliya. shaqadiisa waxay tahay waa inuu saliiddan saacido. qaabkuu ku saacidaa marka wuxuu ku saacidayaa saliidda meeshan tinta leh oo tinteeda khafiif ka tahay markaa marisid tintii joogtayna way soo celinee wayna adkeynaysaa. laakiin meeshaan tinta ka maqan tahay haddaa marisid laftirkeeda saliidda tin way ka soo saaraysaa. laakiin gooro sidee tinta uga soo saaray way ka soo saaraysaa oo tin saliidda maxay soo saaraysaa oo keliya ilihii markaas babanaanaa oo aan weli si fiican u xirmin ee saliidda ka soo saaray. laakiin il xiran oo meesheeda dhabta ah ma malaynaya saliidda inay soo saarayso. soo marka dambaroolka wuxuu ka saacidayaa ishaas xirnaydoo u furaa. saas marka aniga dhaho meeshii oo qolofta ka qaadayaa, maxaa yeelay cirbadii meel yaray jagjag siinaysaa, dulduleelinaysaa, dulduleel yariisay sameynee. inta sidoo kale dulduleel yariisay sameynee. ma fahantay? soo marka saacidaadaas aniga aan saaciday maasha Allah meeshii jagjagta aan siiyey oo xoogaa dhibcahaas ku imaadeen. intana sidoo kale aan siiyey oo dhibcaha ka soo baxeen oo maasha Allah duleeladii furmay. marka aan saliiddii loogu talagalay mariyo, waxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa dambaroolkan inuu saacido oo wadadii jidka si fiican ugu furo. si markaas maasha Allah saliidda shaqadeeda ay si wanaagsan ugu qabsato. soo marka aniga muhiimadda ugu weyn oo dambaroolka xoogga u saaro wax kale ma ahan. inaan isticmaalo saliidda kaligeed waa samayn karaa, dambaroolka waa iska dayn karaa. laakiin madaxayga waxaa rabaa beri markay tinta ii soo laabanayso inaysan tinta meel ka maqnaan sida dadka turkiga tagay oo kale intaan xabo ka soo baxday intaan xabo oo madaxa markaan saan loo fiirinayo caadi ay tahay. laakiin markaan saan dhaho madaxayga meeshaan dhan iyo laftiisa iyo loo jeedo khafiif ay tahay oo tin inta 5 xabo ku taala inta 1 xabo ka maqan inta saas hadii dambaroolka wuxuu iga saacidi doonaa. waana arki doontii insha Allah haddii la yiraahdo markay tinta si fiican u soo wada laabato. tinteedan hadda aniga way soo baxday alxamdulilah. okay ma jeedaa tinteedan hadda way soo baxday alxamdulilah. laakiin maxaa soo baxay tin oo hal xab ma soo bixin. madax la xiiray oo tin hal mar soo wada baxayso ay soo baxayso alxamdulilah. maxaa keenay asaga iga saaciday.
asagaa iga saaciday asagaana ku haystaa ilaa madaxayga aan ka dareemo tintiisa inay si fiican usoo wada buuxsantay oo uusan duleele iyo firaaqi iyo uusan lahayn aan ka dareemo darmaroolka waa isticmaalaa maalinta aan dareermo in madaxayga meesha loogu talagalay maraayo darmaroolka uma baahni laana muhiimadeeda hadda ani waxay tahay 40 cishaan qabsaday darmaroolka inaan isticmaalo 40 cisho markii la gaaro maanta 29 ay tahay 12 cisho ay dhiman 12 cisho kadib waa fiirinaa madaxii haddii oo okay yahay oo isla soo qabsaday darmaroolka waa joojinaa laakiin hadduusan isla soo qabsanin 60 cisho haddana ka dhigaa 20 cisho kala sii diraa 20kaas cisho waa fiirinaa haddii 20ka cisho haddana oo weli sidiis iskula soo qabsanin ilaa 90 cishaan wadaa 90 cisho kadib ma u baahan doono darmaroolka anaa hadda ku dhahay 90 cisho kadib darmarool ma isticmaalayo manigu arkaysiin laakiin inta 90 cisho laga gaarayo ka soka haddii aan result fiican helo waa joojinaa haddaan result fiican helin oo si fiican madaxa oo isku soo qabsanin waxaan ogahay in weli shaqo ku dhiman tahay shaqadiisa oo sii dhammaystiranaa shaqadiisa markuu dhammaystirto kadib waa joojinaa markaas saliidda intaan sii wadaayo markaas aniga igu xiran tahay haddii aan 3 bilood kale sii wadaayo haddii aan 6 bil wadaayo haddii aan sanad sii wadaayo markaas saliidda aniga igu xiran tahay si markaas madaxayga uusan wadadii marka hore u maray uusan u marin waa inaan ka ilaaliyaa marka muhiimadda waa intaas darmarool wuxuu saacidaa saliidda okay taas inaan ogaanaa muhiime marka adigay kugu xiran tahay darmaroolka wuu badan yahay ani hadda 2 nooc lee ku tusay wuu badan yahay tiradu ka batay kan koo kalaa jiro mid kaloo kasii kalaa jiro mid kaloo kasii kalaa jiro shaqo iskuma laha way tiraday ka bateen laakiin mar walba midka adiga ku anfacayo adigaa yaqaana markaa isticmaashid madaxaaga aragtid ha istiraadi kan madaxaaga ma ku habboona mid kaloo ka duwan raadi ku baroobey haddii madaxaaga kaas aad istiraadi kanaa kii ku anfacaye kaas isticmaal marka isku day waxaa isticmaalaysid inuu ahaada mar walba wax adiga aa fahmi kartid laakiin waxaadan fahansanin ama qaab kaloo isticmaalaya aadan aqoonin maanta oo dhan haddaa isticmaashid si qaldan aa isticmaaleysaa wax resulti oo fiicanna ma ka helaysid laanna waxaa laga yaabaa hadda haddii saan markaan dhaho haddana iska dhaaf oo qaybtan dhexe aan kasii boodo haddana inta saas aan dhaho haddana inta saan aan soo dhaho haddana inta saan aan dhaho haddana kan saan aan dhaho wax macnaa ma samayn laakiin markaasaan dhaho oo waddadii aqaano ilaa gadaal geeyo aan ku soo celiyo haddana meesha ku xigto ku celiyo saas dhaho ilaa gadaal geeyo ku soo celiyo haddana saas dhaho tan kusii xigto markaa saas uga dhammaado haddana saas dhaho inta ka bilaabo haddana ku celiyo kor u sii wado haddana kusii celiyo haddana gadaal geeyo ilaa meesha ugu talagalay aan ka tago aan sameeyo madaxayga sidii loogu talagalaa markaasuu isticmaalaya wax uu miiseynayo ma jirto wax uu ka boodayo ma jirtaan dheh marka saas waa muhiimadda marka walaalahay waa idin jeclahay maasha allah tabaaraka allah darmaroolkayga maanta intaasaa ku egyahay aniga ahaanteeda isticmaalkayga qofkii rabo asagay ku xiran tahay 2 daqiiqo 3 4 intay rabtaa isticmaali kartaa laakiin aniga maasha allah waa ii dhamaataa darmaroolka waa ii dhamaaday sheekada hadda turki karoon waaye turki karoon markay ii dhamaatana maasha allah ma u baahni wax kale turki karoon iyo ninkii noo soo saaray duco naga xabsaday ilaahay dahay wuxuu yahay bagaal iyo muslim maanta ummad badanoo madaxooda badbaadiyey ummad badanoo qaarkood rajo aan lahayn oo ka quusteen oo soo celiyey rajadooda marka maasha allah annaga ummaddan isaga dhex jirne dad badan oo sinidiin sidaan ahayo oo niyad u yeelay waa ku mahadsan tahay dheh annagana waa kaaga mahad celinaynaa marka maasha allah tabaaraka allah qaybteeni caawa 9aad saasay noogu dhan tahay marka maxaa lihi jiray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu one love waa idin jeclahay meel walba adduunka joogtiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala